بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ما بعد، عش مطمئنا. موضوع waxyar ka hadli doona waxa weeye deganaan ku noolow walwalkana iska daa. waxaa la yidhaahdaa wakhtiga hadda la joogo maradka ugu badan ee dadka haysta waa waxa la yidhaahdaa walwalka, fakirka, isla hadalka, qofka uu dareemaya inay wax ka maqan yihiin. waxyaabaha qofka noloshiisa ka ciideeya ee nolosha dhadhanka ka qaada waa qofku inuu walwalo. waxaa dhici karta inuusan jirin qof bini aadam ah oo walwal la'aan ah inuusan jirin baa dhici karta. laakiin walwalka waxa la yidhaahdo darajooyin buu maraa, waa 3 darajo. marka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa alxusnu. xusnigu waa waxa murugada la yidhaahdo. markii xoogaa wax si kaa noqdaan oo xoogaa dhibaata kugu dhacdo inaad murugooto waa wax dabiici ah oo caadi ah, waana wax macquul ah oo la aqbali karo. maalan baabuur baa si kaa noqday ama ballan baa iska kaa dhaaftay ama lacag baa si kaa noqotay ama xoogaa buuq iyo waxbaa kugu furmay ama carruurtii baa kugu dhaga adkaatay ama caafimaadkaagii baa wax lagaaga sheegay. inaad murugooto waa wax dabiici ah oo bini aadamnimada ka mid ah. darajada labaad waxaa la yidhahdaa alqalaq. qalaq waa waxa inagu walwal ka dhahno. waa waxyaabaha inta badan ku saabsan markii murugadu weynaato oo qofka ay ku beerto inuu hurdadii seexan waayo oo sariirta uu gagadoomo oo uu isla hadlo oo qofkii uu aad u fakaro weeye. darajada markuu ka gudbo wuxuu gaaraa darajo la yidhaahdaa alka'aaba. ka'aabada waxaa la yidhaahdaa waa waxa inagu buufiska aan dhahno ama depressionka la yidhaahdo. marka depression qofka hadduu ku dhaco ama buufis ku dhaco qofka oo uu marad nafsaani ah noqdo, markaas qofku daawo iyo qofka markaasi waxaa dhici karta inuu jiro ku noqdo. waxyaabo waxaa jira asbaab ah oo walwalka keena ayaa jira. waxaa asbaabtiisa ka mid ah dad waxaa jira dabeecad u leh inay wax yar haddee ku dhacaan ay walwalaan oo isla hadlaan. waxayna u badan tahay baa la yidhi dadkaasi inay tahay walwalkoodu wax dhaxaltooye ah oo aynan ogeyn iyagu. hadda markaad adigu baabuur wadaysid, haddii baabuurka markaad wadaysid aada khalkhasho oo tension kugu furmo oo uu cunugaagu arka adoo xoogaa walwalaya, wuxuu u malaynayaa baabuur in la wado inay mushkilo tahay. malaynayaa carruurta waad aragteen haddii qol mugdi ah la seexiyo oo wax ka naxiyaan, mugdiga dhan buu ka baqayaa. markuu mugdi dhex gala walwalayaa, isla hadlayaa. inta badan marka waa wax ama dhaxaltooye ah. hadday gabadhu aragto hooyadeed oo markii xoogaa dhibaata ku dhacdo ooyeysa hadday aragto, waxay u malaynaysaa mar kasta oo dhibaata kugu dhacda in la ooyo inay dabeeci caadi ah tahay. marka waa wax inta badan laga barto familka ama qoyska ama tarbiyadu keento wey. nin ka mid ah madaxda muslimiinta ah wuxuu yidhi markii UN-ta la isugu yimaado ee wadamadu ay dhibaatooyinkooda soo bandhigayaan
madaxda muslimiinta wuxuu yiri markay soo bandhigayaan dhibka way ooyaan buu yiri qaar baa wuxuu yiri intay dhulka isku tuuraan bay galgashaan kuwa gaaladu una si raganimo leh oo codkarnimo leh buu wixiisa ku soo bandhiganayaa buu yiri marka waxaan ogaaday buu yiri nimankan tarbiyadoodii hore baa waxay ahayd markay ooyaan baa wax la siin jiray markay yaraayeen marka dabci buu ka dhigtay marka waa dhaqan weyn waxa kaloo kamid ah waxyaabaha walwalka keena dad waxaa jira shakhsiyadooda la yiraahdo personality wuxuu aaminsan yahay perfect inuu yahay waxba ka khaldami karin hadday wax yar iska daba maraan wuu isla hadlayaa arday waxaad arkaysaa haddii iskuulka uu keeni waayo wuxuu ku siganayaa inuu isdilo waxaa dhici karta markaad gurigaaga cunto samaysid oo dad marti qaadid haddii comments fiican aan laga bixinin lagu yiraahdo waxbaa kaa khaldamay inaad seexan weyda hameyno isla hadashid dadkaasaa jira personalitygooda noocaas uu yahay baa jira waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keena walwalka waxaa la yidhaahdaa an tashcura alkhawfa min almustaqbal inaad mustaqbalkaaga ka baqdo aw tashaa'um bilmustaqbal mustaqbalkaaga inaad mar walba baasaysato walxusnu min almaadi inaad wax tegay un ka fakerto dad waxaa jira maanta dhan wuxuu ka fakerayaa wixii dhaafay wuxuu ka baqayaa wax soo socda dadkaasna walwalka way keentaa waa dabeecad dad bini aadam oo noocaasaa jira maalmaha ka mid a iyadoo culimmadu stage fadhiyaan oo muxaadarooyin la jeedinayo oo su'aalo live oo telefoon la weydiinayo ayaa gabar baa telefoon ku soo wacday marka waxay tiri waxaan rabaa culimmadu inay ii duceeyaan ilana taliyaan hurdadii baa iga guurtay ma seexdo maxaa kugu dhacay waxay tiri usbuuc ka hor ayaa waxaan dhalay gabar ilmaha ii dhashay marka waxay tiri hadda markii la fiiriyo gabdhaha noloshooda gabadhu markay weynaato oy 19 gaadho oy qaangaadho lama guursado guur bay gabdhihi waayeen hadday guursatana ayadoo yar oo garoob ilmo wadata baa lagu soo furayaa marka waxaan ka walwalay gabadhaada amay guur weydaa iyo amaa lagu soo furaa waa gabar usbuuc hore dhalatay ogow qofka marka ka walwalaya usbuucii hore cunug dhashay mustaqbalkiisa 20 sano kadib ka walwalaya hurda la'aanta ku dhacday waa qof mustaqbalkiisa baasaysi ku nool weeye iyo balaaya saasasho ku nool weeye waa waxyaabaha walwalka keena waxyaabaha walwalka keena waxaa ka mid ah dad waxaa jira intay mar ku dhacday dhibaato ama xaaditha ku dhacday ayay waxay ku reebtay waxa la yiraahdo bad experience aan fiicnayn bay ku reebtay marka mar walba wuxuu ka baqayaa dhibaatadii oo kale inay ku dhacdo walwalka way keentaa waxyaabaha walwalka keena waxaa ka mid ah dad waxaa jira waxay jecel yihiin xubu taqdiir wa taxakum inay dadka kala kontroolaan bay jecel yihiin waa aragteen haddaad walaalo tihiin isla dhashay gabar waxaa cidda ku jirta ama wiil waxaa cidda ku jira inta kale asagoo inuu maamulu jecel yahay haddii marka hal mar uu arko qof maamulkiisa ka hoos baxay way isla hadlaysaa balaayaa dhacday musiibaa dhacday sababtoo qof baa warkeedii maqli waayay dad noocaas waxaa jira xubu taqdiir in la qadariyo oo la ammaano oo la dhaho qof fiican baa tahay oo asagu wax maamulo jecel dadkaas walwalku uu ku badan yahay muhiimadda maanta muxaadarada ay ku wajahan tahay ma ahayn asbaabta walwalka iyo waxyaabaha keena iyo inaan aad uga hadlo laakiin waxaan rabaa maadaama waqtigu yar yahay inaan ka hadlo sidee walwalka la isaga ilaaliyaa sidee ma dhici kartaa inaad ku noolaatin nolol degan oo walwal la'aan ah oo stress la'aan ah oo aad faraxsan tahay oo wixii ilaahay ku siiyey aad ku qanacsan tahay mase jirtaa asbaab caawisay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii iyaga oo nolol naga liidata marka la fiiriyo xagga dhaqaalaha ku nool naga nolol fiicnaa oo naga farxad badnaa oo naga niyad fiicnaa ma jiraan marka waxyaabo ku caawin kara qofka dhalinyarada ah qofka waalidka ah qofka shaqaalaha ah ee ganacsatada ah in uu wuxuu haysto intuu ku farxo oo ku qanco niyadu u dhisnaato oo uu isu maleeyo qofka adduunka ilaahay u nicmeeyey oo ugu badan inuu asaga yahay oo uu raaxada noocaasa qalbigiisa ku noolaado marka waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha walwalka qofka ka saara
waxaa nabiga ka sugan sal alla alay wasalam subax iyo galab kaste wuxuu akhrisan jiray ducaa allaahuma inii acuudu bika min alhami waalxusni ilaah waxaan kaa magan galay murugo iyo walwal baan ilaah kaa magan galay waa nebi maxamed sal alla alay wasalam subax iyo galabba waxaad fahmaysaa marka waa jiro jirta oo dad badan haysata waxaan sheegayaa ilaa 10 qodob oo daawo ah oo la dhihi karo waa kiniini weeye haddaad daawadaa qaadatid oo aad si regular oo rasmi ah u qaadatid waxaa ballan ah inaad ku noolaatid nolosha adduunka ugu degan iyo farxadda ugu badan haddaadan xataa wax weyn oo kugu filan ama kaa badan aada haysanin waa xaqiiqo weeye maxaa ka mid a marka qodobadaas waxaa kow ka ah shalayna masalada waan ishaaray alkhushuucu bisalaa salaada marka aad tukanayso sawirkan kora ha qurxinin keliya salaadaada ku khushuuc ilahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa maxaa ku jirta istaciinuu bisabri wasalaa labada aayadood waxaa mid ka mida la socota wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin qofka aan khushuucaynin salaadda way ku adag tahay ilahay wuxuu leeyahy waxaad kaalmaysataan sabir iyo salaad sabirka waan garanay qofka markii mushkila ku dhacdo hadduu sabro mushkiladii way ka fududaataa laakiin maa sha'nu salaa salaada maxaa meeshaan keenay salaadu waa daawo weeye walaa garwa nebi maxamed sal alla alay slam wax lala yaaba ma aha markii muruga ku dhacdo xadiidka abu daa'uud hadday muruga qabato wuu tukan jiray nebigu sal alla alay slam wuxuu leey arixnaa biha yaa bilaal bilaalow noogu raaxee bal ka waran qof markii muruga qabato intuu istaago markuu allahu akbar yidhaahdo niyadiisu intay degto oo uu farxo iloobayo murugadii oo dhan ka waran waa qof salaada ku khushuucayo wuxuu akhrinayo weeye ku raaxaysanayo weeye ku raaxaysanaya laakiin haddaad noqotay wadaadkii yiri oo kale wadaadda waxaa la yihi salaad tujiyey markuu ka baxay ayaa nin ku daba tukanaya wuxuu yidhi sheekh salaadii qaar baad ilowday marka wuxuu is malaha war ninkan waa nin fiican oo wuu khushuucsanaa wuxuu yidhi sideed ku ogaatay wuxuu yidhi markaa salaada gasho beer baan leeyahay beertaan aadi jiray markaan beerta wuxuu yidhi tago oo aan nimanka shaqaalaha kala habeeyo oo wixii maanta go-ay aan soo qaato oon soo noqda baad ka bixi jirtay maanta anooma beertii gaarin baad ka baxday marka waxaan ogaaday biyo haaf baa salaaddii kaa maqan dadkiibuu weydiiyey war ma run baase idhan haaf baad ka tagtay salaaddii labaad tukatay labaa maqan ninkaas oo kale innagu waxaan leenahay fakar dhallinyaradu waxay ku leeyihiin fakarka adduunka ugu macaan waa midka markaan tukanayo waad isla hadlaysaa waad fakeraysaa waxbaad dhisaysaa waxbaad qorshaynaysaa waxbaa wax weyn kula noqonaya salaadda marka laga baxana meel cidlaad fadhidaa waxaa keenaya waa maxay haddaadan salaada ku khushuucin shaydaanka horta wuu kusoo shaqo tegayaa wuxuu rabaa salaadan inuu ku dhaafiyo oo aadan daawo ka helin oo niyadu kuugu degin oo aadan ku khushuucin oo aadan ku raaxaysanin ee salaaddii inaad walwal ka qaaddaa iyada lafteedii oo iyadiiba mushkilo kugu noqoto oo hadhow ay kugu adkaato marka qofku markuu istaago wuxuu isku mashquulinaya markiiba naftiisu inay baxdo buu isku mashquulinaya salaada marka haddaad rabtid in niyadaadu fiicnaato oo aad faraxdo oo aad heshid meel aad ku nasato salaadu ha noqoto meesha aad ku nasato masaladaas masale xaqiiqa weeye masalada labaad oo u baahan inaan daa'imno haddii aad tahay qof walwal ka baqaya ama walwalka raba inuu iska ilaaliyo waxa weeye adducaa markii walwal ku qabto oo mushkila kugu dhacdo oo aad dareento in aad dhibaato ku haysato gacmaha intaad taagatay rabbi hoos fadhiiso walaahi maa acdama adducaa khaasatan cinda albalaa wax duco weyn ka weyn ma jiro markii qofku dhibaato haysato khaasatan qalaq walwal markuu haysto waxaad arkaysaa qur'aanku wuxuu leey waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yihi barya waa idinka ajiibaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib bal ee qur'aanku wuu waajibinaya wuxuu leeyahay wadcuuhu khawfan wa tamaca war ilaahay barya adoo damacsan adoo ka baqaya labadaba bari saxaabada nebigu maalin buu u sheekeeyo wuxuu yidhi duca aad alla baridaan ma jirto ilaa waa laydinka ajiibaya say dhaheen idan nukthir walle marka waan badinaynaa si allahu akthar ilaahay baa ka sii badan haddaad badiso ilaahay baa ka sii badan wuu ku sii badinayaa laakiin ducada
haddaad dareensan tahay inaan ducada lagaa aqbalin, haddayna ducadaadu qiimo iyo macno weyn kula lahayn, waxaad fiirisaa aadaabta ducada kaa maqan. aadaabta ducada waxaa ka mid a markaad ducaysanayso in aad 100% hubto inuu ilaahay kaa aqbalay oo shaki kaaga jirin. yaa ikhwaani, waxaad fiirisaan nin sharaf leh oo familkaaga ka mid a oo waxaa jira markaad wax weydiisanaysa aadan ka shakinaynin inuu ku siinayo. ma hebel baa intaan u tago waxaa ii diidaya. maxaad u malinaysaan allihii rabbigii kownkan abuuray ee deeqsinimada isku ammaanay ee yidhi addoonkayga hadduu gacmaha ii taagto waxaan ka xishoodaa inaan ku soo celiya iyagoo maran. maxaad u malaynaysaa hadday niyadaada shaki ku jirin oo aad isku hubto alla wuu ku siinayaa. wiil waxaa jira dhallinyaro ah oo indhaha ka jiran. indhaha marka wiilku wax weyn ma arko, waana nin aad u cibaado badan oo khayr jecel oo dhallinyaro ah. marka xajku aaday, sheekhi uu la xajinaya wuxuu ka sheekeynaya, wuxuu leeyahay markaan xajinay biyaha zamzam baan u nimid. biyaha zamzamka markaan nimid dadku intay cabaan bay wejiga marsadaan, madaxay marsadaan. biyihii wuxuu intuu wejiga ku dhaqday oo cabay oo madaxa ku dhaqday oo kiyaalihiisi anoo ujeeda buu intuu isku laabay oo jabiyey buu taraashka ku tuuray qashinka. markaasaa ilmihi maxaa adeer isaga tuurtay oo kiyaalaha? markaasuu soo nebigu ma dhihin sal allahu alay wasalam biyaha zamzam waa wixii loo cabo baa laga helaa. anuu biyaha waxaan u niyeystay indhahaas ilaahay inuu iigu caafiyo wuuna iigu caafinaya. wuxuu yidhi markii xajkii uu dhammaaday yaan wiilkii waxaan geeyey isbitaal anoo rabo bal inaan fiiriyo wiilkan niyadiisa inuu ilaahay u qaaday. dhakhtar baan u geeyey buu yidhi wallaahi wuxuu yidhi indhihiisa waa 2020 waa si ilaahay ku abuuray. dhakhtarkii baa yidhi weligii wax kuma dhicin, say clean iyo nadiif u yihiin. markaasaan waxaan ogaaday buu yidhi wiilkani niyadii iyo kalsoonidii uu alla ku qabay buu alla ku irsaaqay. mar haddaad aaminsan tahay noocaas, yaa rabbi haddaad ahayd walwal iyo dhibaato iyo mushkilaad waad kala dhammaanaysaan. waa xaqiiqo weeye. waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid a mar baa xaaskayga oo uur leh ilmo caloosha ugu jira, waxay dhaheen ilmaha waxbaa ka khaldan. wadnaha duleela, caloosheedu ma korayso. maalin dambe waxay dhaheen caloosheedu way sii yaraanaysaa mar walba oo hadda waxay maraysaaba markii ciyaalka la fiiriyo 10% bay maraysaa. maalin walbana way sii yaraanaysaa. marka waa inaan ilmahan soo saarno, bannaanka u soo saarno oo dhala aan gelino. hadda miisaankeedu wuu fiican yahay laakiin way baaba'aysaa. cuntana ma cuni karta. caloosheedu waaba waxay sii maraysaa 10%, way ka sii yaraanaysaa maalin walba. nin oday ah oo dadka masaajidka ku xiran oo wanaagsan ah yaan maalin is aragnay. markaasuu wuxuu yidhi ii waran oo reerkii ka waran oo xaaskii ma umusho. saan idhi maye oo baryahan isbitaal baan ku noqonaayo maalin walba gabadhii baa waxaa la saa ya ultrasound la saaraayo waxay leeyihiin ilmaha wax ka khaldan waa soo bixinaynaa. markaasuu war sheekh cabdirasaaq ma waxaasa annagana dhiba. waa taqaanaay annaga waxaa nagu filo inaan gacmaha taagano yaa rabbi dhahno intaas wey. wallaahi ikhwaanii markii gabadhii ay dhalanaysay waa soo saaraynaa bay dhaheen. waxay dhaheen horta waan baroobaynaynaa inay caada u dhasho daawo waan ku shubaynaa yaan siinaynaa foolisa ah. way ka fooliyeen. gabadhii oo saaran sariirtii oo dhahaysa haddaa nabar qabanaya habeen barkii marka la gaaray 12 habeennimo bay dhakhtaradu noo timid. markaas waxay tiri iska cashee, gabadhii ku tiri iska seexo sababtoo dumarka foolisada lagu dhufta iyagoon waqtigooda la gaarin 2 beri camal bay yay dhici karta inay qaadato. anoo marka iska ilaahay iska tala saaranayo oo iskana gabadhana niyada u dhis yaan waxaan idhi fajarka salaada fajarka intaan la gaarin baad dhalaysaa insha allah. yaa idhi ilmihii wax yar kadib way foolatay. wallaahi ma rumaysan kartaan hadda cunugta dhalashadeedii waxaa ku qoran salaada fajarka waxaa la aadaamayay 6:15 markay tahay baa la aadaamayay 6:16 baa dhalashadeeda ku qoran inay dhalatay. macnaha waa inta dheerta laga goynayay 6:16 baa ku qoran. macnaha 1 minute wey. markuu dhashay bay la carareen, dhakhaatiir baa isugu timid. waxay dhaheen waa healthy baby, xabad ma qabto. markaasaa waxaan idhi wixaad sheegayseen awe say dhahaan ultrasoundiga iyo computerka laakiin now we see the real baby. cunugii oo hadda runaan u jeednaa xabad ma qabto. marka ninkiiaa xasuustay, ninkii odayga ahaa fiiriqo ninkaasuu niyada iigu dhisay sida uu ilaahay ii xasuusiyey. wuxuu ku leeyahy war waxa hawshaan hawsheenni weeyaba.
أنا قعمان تاجنا يا ربي وحنا والوك لك عيا هذو قفكم مرك إيمان كالنوع عاسقبه كالسوني النوع عاسقبه مرك ولول يا عليس يا بريشر يا حاجة كربة دريمه قعمه تاجته إلهي بقى كلا ويحنا كلا حاجة مسألة صد حد وحويه ذكر الله مركز ولول درينتي مركز كربة درينتي مركز إبات درينتي قرقي بقى وحسكين عرورتي بقى سئة نلاش هذه بقى عريرية وحبات دريميسة كربة درينتي انت فريستي الدقائق كوبا od alla hor fariisatid alla xus waxay dhaheen culimadu waxay dhihi jireen laa qalaqa yasmudu amaama dikri almustamir dikri joogta ah walwal hor istaagi kara ma jiro dadka qaar baa waxay u maleeyaan dikriga keliya inay culimadu yaqaanaan wax weyn oo culimadu yaqaanaan war haddaad tidhaahdid keliya intaa fariisa subxaana allah waxaa lihi kelimaadka ugu nafciga badan dikriga oo ugu hagaagsan oo ugu awooda badan markii quraanka laga soo tago waxa weeye subxaana allah alxamdulilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar intaad fadhiisatay intaas ku celceli waxyaabaha dhacay oo qisaska aan la yaabay waxaa ka mid ah gabar baa beri noo timid marka waxay tiri sheekh hurdada 3 sano oo hadda la soo dhaafay hurdo aan seexday ma garanayo oo weyn waa gabar dhakhtarad ah oo Soomaaliya weyn marka waxay tiri waan wax mana walwal lama hayo waxay tiri markaas dhoo hurdada way tagaysaa marka kiniini baan cunaa kiniiniga markaan cuno habeen baan seexanaya laba habeen dhakhtarkaan ku noqonaya kiniini kale uu soo qoraya gabadha rafaadka iyo dhafarta ka muuqato waad yaabaysaa marka xoogaa quraan baan ku akhrinay waxaa yidhi markii walwal markaad seexan weydid oo hurdadu kaa tagta maxaad samaysaa waxay tiri waxaan sameeyaa tv-ga iska kor fadhiistaa saan u kor fadhiyaa subax carruurta igu soo kacaan ma seexanayo hurda igama imaanayso waxaan ku yidhi caawa markaad guriga tegtid ood cishaha tukatid oo shaqada guriga aad dhammaysatid intaa fadhiisatid oo salli aad dhigatid oo aad suuratul baqara daaratid qur'aan dhagaha gashatid suuratul baqara daara dhagaha gasho fariiso darintana waxaa soo dhigataa barkin meeshaas fariiso oo waxaad ku celcelisaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ilaa ay kaaga timaado hurdadu haddaad hurda ku qabataa ama caajis sariirta aadina meeshaa seexo wallaahi gabadhi waxay tiri hameenkii ay igu dambaysay hurda la'aantii waan fadhiistaa qur-aankayaan dhagaha gashaa suuratul baqara waan fadhiistaa waxay tiri markaan xoogaa wado subxaana allah qalaf waxaan ku soo kacaawayto subaxii waaga baryay saan hurdo wixii waa kala tageen dikriga alla fiiri awoodiis dhalinyarada qaar ba waxay ku leeyihin waqtiga ma annagaa dikri u hayna war haddaadan waqti xaataa haynin kelimaadkaaga waxaan dhahaa aabbayaasha markaad guriga joogtid carruurtaada markaad time out siinaysid oo leedahay waryaa ma samaynaysaa waxa mise ma samaynaysa haye waxaan kuwa qabtay 1 2 3 soo ma dhahno waxaad dhahdaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah subxana allah wabixamdih subxaana allah alcadiim astaqfir allah waatuubu ilayh allahuma salli calaa muxamed yaa xayu yaa qayuum tanka waa dhammaatay dhalinyarada markaad xataa biraha jiimka khibraha qaasaan haddaad ka waran subxaana allah markaad leedahay 1 2 oo iska dhegaysid nin khatara subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar haddaad dhahid ka waran waa dikri waqtina kaama bixin marka waa cajiib waaye dikriga waqti looma waayo waa cibaadada keliya oo aan u baahnayn waqti go-an oo aan dhaqaalo u baahnayn oo xoog aan u baahnayn oo aan u baahnayn firaaqa aan u baahnayn jikada markaad ku jirtid yaa saddexda qaado oo ku daraysid oo cusbada ah ama sonkorta ishaha waxaad dhihi kartaa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar waad dhihi kartaa maxaa ka fiican isbar naftaada ku tarbiye masalada afraad waxaa weeye xusnu dhanni billah waxaad mar walba filataa wax wanaagsan inaad alle ka helaysid walwalka waxa keena sidiisaba waa xumaasho aad filanaysid weeye wax wanaagsan alle ka filo waxaa la yahay nabiyullaahi yacquub calayhi salaam markii wiilkiisa yuusuf la waayey hadalladu yidhi ma xasuusataan fasabrun jamiil wallaahu almustacaanu calaa maa tasifuun wuxuu leeyahay yaa bani yadhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiih walaa tay'asuu min rawxi illah fiiri inii aclamu min allahi maa laa taclamuun wiilka ma uusan helin baa la yidhi markuu kelimaadkaa dhahayay markii wiilkii kale la waayey
هذا الكلمة حصتان فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا صبر وناكسن الله وحن كرجين يا إنه ويل شيء إيه كانوا لما يقولوا الله كان بالي وحيدها علماء أيضا وحيدلوا تاي مر هداد الله هذا السينا يا الله كما قدنا يو النبي صلى الله عليه وسلم الله وحيره أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا أضون كي وحو إيما لا يستبعنا هاي هذا ترى هذه وربي جاي وأرزقيا وعافينيا وإقرقاريا وإكالمينيا وإكورينيا وإعاونيا إما ضيعيو هذا والله إنه سكو ضيعين كما ضيعين لكن هذا آمن سنتهي إنه أطيباتونيس أو مشكلة كودا عيس أو وحكودا عيان وأطيباتونيسا قضبك شناد وحوية ومهم عش حاضرك وقتك أدجوك للنولو waxaad iska ilaalisaa wax tegay inaad ka walwashid iyo wax soo socda inaad ka walwashid maalintaada shaqada ku taala hadaad ku mashquushid ma walwalaysid qof walwalayo warayso nin waxaad arkaysaa isla hadlay war maxaa kugu dhacay wuxuu ku leeyahay oriyahow islaam baan guursaday oo jeclaan jiray oo 2 sano ka hor baan furay siibu ka walwalaya 2 sano ka hor buu furay ogow video wuxuu ku leeyahay gabar aan jeclaan jiray baan nin iga guursaday taas ka walwalaya fiir war wax tagay islaan afurtay mid laga qaatay dukaan dumay wax tagay oo mustaqbala doon degtay niyadaada raacinin wixii maadi oo tagay waa tilka ummatun qad khalat way tagtay intaad ku ribdid intaad box ku xirtid wixii tagay waxaad ka qaadataa kaliya khibrad wax kale ha ka faa'iideysan mustaqbalka alla gacantiisa ku jira mana ku dayacayo ma ogid adiga ما وقتك جوكت حاضر كهاي أكون مشغول مسألة ذا لحد وحوي واجه المخاوف وحا أتكبر قيسو أول ككوهية ههور تاجنانينه وحي السماء وفيس كراء وكجذب حقيقة وحا مركي آد قشيد وقعنت اللي قشيد وفضانيا صومالي صومالي يجرين محوها قوي هذا الكي مهل الجوش لنا الهولينين haddaad wax samaysid dhalinyarada qaar baa wuxuu leeyahay guurka waan ka baqayaa wuxuu haystaa wax weynan badan oo laga baqayo war guursa adeer ha ka baqin iskuulka wuu ka baqayaa war adeer ha ka baqin aad fiiri guuritaanku ka baqayaa magaalada inuu ka guuro ha ka baqin adeer guur haddaad wixii samaysay aad ka baqaysid imaam ibnu taymiya ayaa tashwiish lagu furay waa lagu xirayaa waa lagu dilayaa waa saan markaasuu wuxuu yidhi maadaa yasnacu acdaa'ii bi aniga cadowgaygu maxay ugu samayn karaan إن قتلوني فقتلي شهادة هدي الدلان دلكي وشهيد نمو وإن نفوني فنفي صياحة هدي مسافريان مسافرسكي وتلحيس وإن سجنوني هدي إحران فسجن خلوة وحمن هلي وقتا إله كل خلوة ماذا يصنع بي أعدائي أنا رجل جنته في قلبي أنا نمبان هي جنديسي دلحيس كأها وحي وجدت قلبك وقلبي بيد ربي قلبك يقولنا قعنت قال له كجرا مجرى قف كنترول كرا ان قضب كتضباط تقبل الواقع واقع اتكسو غنتها اقبل هنقلتاج وحن ما هيستو وايغا مقن yahay dhibaato family waxa arka isku furayo ku baaba'aya daagta dariska baawurka loo gaday Soomaad arag dahabkii haysata Soomaad arag war waaqiceeda iyo waaqicaagu soo ma kala duwanaa ninkaaga iyo ninka isku inkamaya waxaad dhigtay nin ganacsada inuu qabo nin lacag leh inuu qabo adiga ninkaaga biil kareerka inuu ka badin karin marka waaqicaaga wax ku beys kare masalada sideedaad waxa weeye isnac al-ibtisaama waxaad barataa sida loo farxo oo niyada loo hagaajisto oo waxa aad haysto loogu farxo masalada waxaad kaloo barataa 9 nisyaanka halmaanka wax la dhaho haday wax kugu dhacaan halmaan meeshaas kaga tag عمر ابن عبد العزيز وحالي همين كودن صلاة وتاجنا أو صلاة الفجر كسوت كذا اللغينية يعني نبى يكون وهردو ده جدك صعدا نبى كدعي نك مركو كدعي نك بقى أنت وقبت يوحكي أعمى أنت ورمه يندول باته نقلح وأمير المؤمنين كسوي لا لست أعمى ما يندول ما إيه ورديس يا سيف قاعد تحط عينك يردلو سوي محد نك يقول سوي حكي يمين مقلين سوي محوير سؤال بيودي وأنا جوابي وإيش المشكلة وحويد ما يندول باته أنا وحنكو يندول ما إيه وانا ما مشكلة دي لكن هدات كابوت
hebel baa ifiiriyey, hebel baa salaanta ila dhaafay, hebel baa saa iyiri, xaggay ka baxday, waxbaa layga sheegay. haddaad ku jirtid keliya walwal ah waa qiila waqaala iyo waa la yiri, akhi wixii kugu dhaca halmaan meesha uga tag. masalada ugu dambaysa aan kusoo khatimaya waxaa weeye oo tobnaad, asil macaaniya alxubbi. haddaad rabtid inaad walwalin waxaad noqotaa qof wax jecel. odayaashu markaan dhaho jacaylka waxay u malayaan keliya inaan leh islaamaha jeclaada. islaamaha keliya ma ahane alla jeclow, oo nebigaaga jeclow, oo qur'aanka jeclow, oo awlaadaada jeclow, oo xaaskaaga jeclow, oo muslimiinta jeclow, oo wax kaste oo ilaahay abuuray oon macsiyo ahayn jeclow. waxaad noqonaysaa qof degan oo cuqdad la'aan ah, oo niyadiisu fiican tahay, oo wax jecel baad noqonaysaa. laakiin haddaad noqotid qof wax naca oo karaahiyeysta oo cuqdad qaba, waa isla hadlaysaa. mar walba dadku maxay ku leeyihiin, dadku maxay kaa sheegayaan, yaa ku neceb, yaad ka hadlaysaa. waxaad isku daydaa in qalbigaagu qof kasta jeclaado bini aadama, xataa makhluuqaadka ilaahay, xayawaanaadka ilaahay. qof niyadsan oo wax jecel noqo. una sheeg dadka inaad jeceshahay. xaaskaaga waxaa ku tala waa ku jeclahay, carruurtaa waxaa ku dhaha waa ku jeclahay, walaalaha muslimiintu xataa ilaahay dartii baan idiin jeclahay, no dheh. laakiin haddee waxay dhahaan marka aad leedahay qof waa ku jeclahay, haddaadan dhigin booskii la rabay, waxaad dhici karta marka qaarka inaad khaldantid. wadaad baa wuxuu dhegaystay baa la yidhi, wadaad muxaadareynayo dhahayo, war markaad guriga tagtaan islaamaha waxaad tidhahdaan waan ku jeclahay, cuntadaadu macaan badana, gabar yahay qurux badnida, carruurta waan ku jeclahay dheh. ninkii oo marka feeraysan oo muxaadarada keyn baa guriga soo galay, islaantii baa cunto usoo dhigtay. su marku saa u taabto wuxuu war cuntadu macaan badana, maasha allah, se intay qaaday madaxa kaga shubtay. wari markaan dariska ka soo qaadana ma macaan tahay, marka anuu kariyana ma arkaysid miya? ilaa cuntada caaw dariskaa laga soo qaaday ma oga. macnaha kelimadda waa meel khaldan buu adeegsaday. marka kelimadan waa ku jecelahayda ah meel munaasab ah u adeegso. intaasaan ka wada. jazakum allah khayran.